السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركلة مقال حاجة channel كعيوسية هدي أدنى قصة هاي وأي تمكور إذا صبغ غطاء channel كا فضلا سبسكرايب صار جنبالك الفروسية وصل عنا من مقالة أسوق بلينو لكن نصاصي أدنى قدير جلسو مقال كا نفسي والمقالة نوعا وكله ما أنتم حقادنا هنا مادة حقادنا ضمن مادة fiiska ee galaaska form 2 cashirkiisa koowaad chapterka koowaad ayaan ka qaadan doonaa xiisadii koowaad aan ka bixinayno manhajka cusub grade 1 ama chapterka koowaad ayaan qaadanay chapter 1 waxaa lagu magacaabaa ama la yiraahdaa wuxuu ka hadlayaa guud ahaan measuring instruments qalabka wax lagu cabiro ayuu ka hadlayaa waxaan kaga hadli doonaa sharaxaad kaga bixin doonaa we explain waxaan ku sharxi doonaa the use adeegsiga of the following instruments qalabkan soo socda ee ugu horeyso meter rule xeerka ama sharciyada meterka ayaan ku baran doonaa waxa uu yahay sidoo kale waxaan ku baran doonaa metric tab iyo qalabka meterka ama cabiraadka wax lagu cabirayo meterka qalabka laftiisa ayaan uga hadli doonaa metric tab waa qalabka meterka nuucu doona ha ahaada macaag ama bir ama dhalo inta uu noqon karaa marka metric tab waa qalabka meter laftiisa waxaa kaloo baran doonaa vernier caliper halka loo yaqaan caliperada ay isticmaalaan inta badan dadka ka shaqeeya toornooyinka ama biraha iyo makaaniga dadka lamida marka ay boolasha iyo waxyaabaha agabka la xiriira biraha baabuurta lagu xiro oo kale iyo meelaha qaab dhismooyinka casriga caalamka ka jira markii cabiraad laga sameeyo qalabka ayaa loo adeegsadaa waxaa la dhahaa vernier caliper laakiin Soomaalidu waxay u taqaanaa inta badan dadku yaqaanaan caliper ayaa la dhahaa ayaan ka hadli doonaa waxaan sidoo kale ka hadli doonaa waxa la yiraahdo micrometer waa nooc ka mid ah caliperada laakiin ka casrisan wuxuu cabiraa si gaar ah cabiraa tuubooyinka waxyaabaha dhuuban ayaa lagu cabiraa inta badan aad looga cabiraa waxaa kaloo ka hadli doonaa micrometer screw gauge yaa isku dhaha magaciisa micrometer screw gauge waa qalab ka mid ah wala mid yahay caliperada wala mid yahay laakiin sida badan waxaa lagu cabiraa oo loo adeegsadaa tuubooyinka waxyaabaha aad u dhuuban ayaa wuxuuna ugu duwan yahay halbeegyo iyo wuxuu leeyahay hab digital qaarkood digital ay u samaysan yihiin oo number automatic ayuu leeyahay marka waxaan ku ka bilaabaynaa marka links wax quseeya waxyaaba dhirkan waxaa quseeya inaan barano meterka xeerarkiisa iyo qalabka meteraadka labadaas qodob ayaan ku hadli doonaa waxaan ka bilaabaynaa meter rule maxaa la dhahaa xeerarka meterka muxuu yahay meter rule is a device waa qalab waaye ama andhaho waxaa meter rule is a device waa qalab ama a type of ruler ama waa nooc ka mid ah mastarada ayuu qayb ka yahay that's used waxaa loo isticmaalaa to measure in lagu cabiro length dhererka width balaca iyo waxaa lagu cabiraa height iyo dhererka ayaa lagu cabiraa of different items ay leeyihiin shayaalka kala gedisan the main function of the meter rule xeerka ugu weyn ama hadafka ugu weyn uu leeyahay ama wax qabadka ugu weyn uu leeyahay xeerka meterka wuxuu yahay is to measure in la cabiro things shayaalka by in loo isticmaalo la adeegsanayo metric measurement system cabiraad oo meter la yiraahdo caalamka waxaa ka jira laba hab oo caalami ah laba sabab halka la metric system oo inta badan dadka ay dhahaan internationalka asiga ah iyo habka loo yiraahdo British system markii meter system laga hadlayo kale markii wax dheer la cabirayo waxaa ugu yar centimeter meter iyo waxyaabo lamid ah la isticmaalaa markii British system la isticmaalayana waxaa la isticmaalaa wax ugu yar oo isticmaalo waa inch waxa ku xiga feet yard iyo mile waxyaabo lamid ah ay isticmaalaan laakiin inta badan isticmaalka ugu badan caalamka waxa ugu badan oo la adeegsadaa habka la yiraahdo metric system ayaa ugu caansan marka the main function of meter shaqada ugu weyn ee meter rule xeerka meterka uu leeyahay waxay tahay to measure in la cabiro things shayaalka in lagu cabiro by metric measurement system ayadoo la adeegsanayo hab cabiraad ku saabsan meterka ayaan ku baran doonaa aan hore u sii socono marka meterka markii la hadlayo as the name suggests sida magaca aad ka garan karayso haas wuxuu leeyahay length mar walba la cabirayo meter ama shay meteraadkiisa la cabirayo waxaa ogaanaysaa wuxuu leeyahay dherer ayuu leeyahay meterka waxaa cabir ku fadhiya cabirka uu ku fadhiya maxaa waaye as the name suggests magaca uu soo jeedinayo has wuxuu leeyahay length of 1 meter ereyga meter markaad arkaysaba sidiisa markaad dareemayso cabir uu ku fadhiya oo la eg 1 meter width is
the same as kaasoo la mid ah wuxuu la mid yahay 100 wuxuu la mid yahay 100 oo centimeter oo ayuu leeyahay 100 centimeter ayuu leeyahay that is oo xal loo qoraa 1 meter equal ama 1 meter waxay la mid tahay 100 centimeter ee loo qoraa si la mid ah waxaan xogaayay aan sharxaad ku daro oo sanbuuga bixinaynin hadii aad rabto inaad wax ku cabirto systemka la yiraahdo British system wuxuu leeyahay inji hadii uu bato 12 duu gaar hal fiidal ah hadduu 36 gaaran yaardi Allah sidaas ayuu la mid yahay laakiin hadda anaga cashirkeena ama buugeena wuxuu si gaar ah u hadlayaa meter system oo marka halka meter noo la mid yahay 100 centimeter noo la mid yahay the smallest scale division marka mar walba aad aragto system markii la sheegayo kala haduu waxa weera taqaanadeed arday tahay darka kartaa laba shay laga yaabaa in badan aragto waxa laga yaabaa mastarada oo kala hadii ay ku dhawaan dhawaanaha aragtay control ku samee mastarada waxaad arkaysaa waxa ku qoran eber ko labo 3 4 laakiin eber ilaa iyo ko dhexdooda waxa ku jirto 10 xariijimo yar yar 10kaas xariijimo yar ee meesha ku jira waxa la scale division Allah mid walba qiimo ku fadhisaa hadii mastarada waxa lagu cabirayo ay tahay midda ku fadhisa ama ku qoran waxa ay qiimaheedu yahay centimeter 10kaas yar wuxuu dhigmaa kan koowaad wuxuu dhigmaa 0.1 kan kale wuxuu dhigmaa 0.2 kan kale wuxuu dhigmaa 0.3 0.4 ilaa laga gaaro sidaas hal centimeter loo gaaraa ana wax ka sii hooseeyo waa hal centimeter ay ku hooseeyaa lambar markaas uu sii jira hadii hal la joogo laba la joogo kan kale wuxuu ka dhigaa marka hal dhibic hal ayuu ka dhigaa hal dhibic laba saas oo socon xariijin mid walba marka 0.1 ayuu ku fadhiyaa waxaan loo yaqaanaa marka xariijimaas yarka ee u dhaxeeya labada number dhexdooda ay scale division ay lahaa scale division waxa lahaa halbeeg qaybeed ay lahaa halbeeg qaybeed waana asaaska halbeeg walba hadii unityadaas yar ay saxmaan oo meesha kugu qoran ay saxmaan waxa awoodi karaysaa inaad meter system aad diyaariso gacantaada waliba aad ku qorto awoodi kartaa hadii aad scale-ka iska saxdo waa the small scale division marka qaybsamida halbeegyada ugu yar qof uu leeyahay meter rule heerka meterka uu leeyahay is waxa waaye 0.1 centimeter waaye scale division ugu yar ee ku jira metric system markii la hadlayo waa 0.1 centimeter waaye waxaana loo soo gaabiyaa ama la dhahay inta dadka u yaqaanaan 1 mm hadii aad u baahato 1 mm in ogaato waxa fiirsan 1 centimeter xajmaha ka yar kan ugu hooseeya ugu yar ee 0 gana ka sareeya kaasi wuxuu noqon doonaa 1 mm ama waxa akhrin kartaa 0.1 centimeter akhrin kartaa the smallest scale division the smallest scale division halbeeg ugu yar qaybsan halbeega ugu yar iskoolad waxa la dhahaa accuracy waxa la dhahaa sax waxa yeela dhamaan waxyaabaha halbeeg oo dhan hadii kaas uu sax kan kala sax uu sax accuracy waxa la marka xaqiijiye ama hubiye ayaa la dhahaa this accuracy marka xaqiijiyaha ugu yar ee uu leeyahay of metric rule heerka metric xaqiijiye ugu yar uu leeyahay is waa 0.1 centimeter waa ama waxa uu ku macneyn kartaa 1 mm halkaas ayaan ugu bixin cashirka laakiin hadii ay tahay janalka markii ugu horeysa soo baqato fadlan subscribe sar gambaleelka furasi aad u rukumata dhamaan muuqaalada aan soo gelino hadii aad istiraaho waxba qaldan ama wax la bedelo ama qaabka noocaas loo sameeyo in fikirkaaga qaybta falada inoo qoro insha Allah waa ku maasanta daawashada